waxay ku socotaa fanaanad kamida fanaaniinta ugu caansanaa ee ugu cadcada wadankaasi Mareykanka. fanaanadani yacni waxay kamid ahayd fanaaniinta sida Michael Jackson oo kale tabka aaday, laakiin hal mar wax ku dhacay iyo se wax u dhaceen waxa dhanba ay ku jiraan shucaac oo ilaa iyo maantadan aanan qofna xalin karin. qisada Michael Jackson waxa ka soo hadla umaleynaya 2020 miya talo mise 2021 I think 2020 aan ka soo hadlay soo daarti channel ku jira soo daawo. gabadhaani fanaanad ayadana soo kale qisadeedu waa mugdi badan ku jiro, laakiin waa idin soo bandhiga waxa ku dadaalaynaa inaan anaga xalino. okay, soo koro diyaarad, let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا ودناك سلالة دقاليقا وانا ولاشين هوداني شالك هذيقا داوانيسان وشالك هذيقا براتين هودان أونلاين هدي تاي داود مركبو هوريسي كاسو بحساب عليكم سودو سبسكرايب نوصار قنباليلك فروحي كعاونيسا إنا نقتي داودها ugu horey wixii talaya tusaale mise su'aal aad qabtid mise ra'yi qaybta commentiga nagu la wadaag. videogan hadaa daawatid ood ka heshay hadaa kelimo isku mid laakiin like furubada maadaama waqti badan ay iga baxay waa mahadsantahay. marka daawatida inaad ka tagtid waa ceeb share garay family asxaabtaada la wadaag. waa mahadsantiin waxa hadalka u dadajinay marabina idin ku dheeraado. okay, because waxay dhahdeen hordhaca soo gaabay amarkiina jiro 2012 ayaa fanaanada caalamiga ah ee la yiraahdo Whitney Houston ayada iyo gacan yaraheeda ayaa waxa dhacday in laga casuumo mise laga marti qaado xaflad weyn oo caalami ah. Whitney Houston oo fanaanada markaas waxay jirtay 48 jir ayay ahayd, waxayna ku soo degtay hotelka mise ay ahayd in ay deeno ku waqti qaadato inta aysan xafladda ay ku guda jirto. hotelka la yiraahdo magaciisa Beverly Hilton Hotel. okay, kadib gabadhii markay timiday magaalada oo hotelkeedii timid ayaa waxay ku tiri gacan yaraheeda ama si dadka de howsheeda u kala wada oo gacan yaraha aan dhihi karno markaasi baa waxay ku tiri daal fara badan baa dareemaya, waxaa rabaa inaan roomkayga aado on hot shower soo qaato, kadib waa labisanaynaa waa isdiyaarinaynaa xafladda ama si showga ayaynu u amba bixi doonaa. kadib way soo baxday hotelkeedii dabcan roomkii ay ka deganayd fanaanadu ayay soo gashay. gacan yaraheedii markaa way sugtay cabaar kadib markay weyday ama se ay daahsatay bay qolkeedii ugu timid, way gargaraacday waa laga furi waayay. isla markiiba waxay wacday receptionka gacan yaraha waaye oo dumar ahayd. markaas receptionka wacday waxay ku tiri fanaanada Whitney Houston gacan yaraheeda ahay waxay ugu tiri waa shower baa soo qaadanaya. qolkeeda bay gashay saacad iyo bar ka hor, waqtigaas dhan shower ma qaadato because inaan baxna way late inay isdiyaarisan wali weeye balkaalaya ee qolka ii fura caado uma lahan inay qolka yani inta dhan ay maqnaatay. dabcan markay soo fureen ay qolkii fiiriyeen musqushii waxay ka heleen fanaanadii Whitney Houston oo ku jirta banyoda qaybta oo lagu qubeysto banyoda oo biyo kulul ku jiraan, qaarna biyihii wali ay ku socdaan. fanaanadii oo saan waji biyaha ugu jirto sas u sabaynaysa, biyaha socdaayna kuleel aawadeeda uu skinkeedii uu gubayo. dabcan biyihii laga damiyay isla markii waxa la wacay booliska ambulance bla 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 waa la imaaday. gabadhii waa la qaaday meeshii waxa lagu sheegay inay meeytahay waa la qaaday. gabadhaani fanaanad marka aan barano muhiim weyn inaan barno qofka ka hadlayna. fanaanada waxaa la yiraahdaa magaceeda Whitney Houston waa Black American weeye, waxayna dhalatay 1963 ayaa waxay ku dhalatay New Jersey. Whitney waxay fanka jecleed ayadoo yar because hooyadeed ayaa waxaa la dhihi jiray CC Houston. I think Houston inay iyadii hooyadeed isku last name ay yihiin, halkaasna waxba kaaga soo bixi kara hadaa qof aqligu saaxiib ah tahay. okay,
hooyadeed laakiin fanaanad way ahayd laakiin fanaanad caan oo balaayo ka dhacday ma ahayn ee hooyadeed waxay ahayd dadka la dhaho afqalaadka lagu dhaho backup singer dadka fanaaniinta ka gadaal heesa inkastoo anaga Soomaalida nagu yartay laakiin dadka fanaaniinta gadaashooda istaaga ee sheeko heesta u jiibiya ay ka mid tahay hooyadeed dadka ay heesaha u jiibin jirta ama ka daba qaadi jirta waxaa ka mid ah Elvis Presley hooyadeed waxay hankeeda iyo hadimadeedu ahayd inay noqoto ama se u hanweyneyd in ay noqoto star ama se de qof fanaan caan ah oo la jecel yahay laakiin uma aysan suuroobin hooyadeed marka waxay hobbigeedu ahaysaan idin soo sheegay daawade fanka mar walba de hooyadeed waxay ahayd qof ordayso oo de ceeshkiina soo dhicinayso oo gabadha yar kaligeeda korsato arsaaqdiina soo dhicinayso banaankana aabiyo hooyo ka ah gurigiina hooyo ka ah waa dareemi karnaa Whitney gurigooda wuxuu ahaa guri mar walba saxmad ah oo dad badani oo de qaar fanka rajeynay qaar already fanaaniin qaar fanaaniin yar yar hees lagu laxameeyo balaayo iyo baqtiyo qashiis daasada loo garaacanayo bay ahayd gurigooda hooyadeed marka maadaama all the time ay mashquul ay ahayd waxay uga tagi jirtay guriga iyo de labadeeda caruur hooyadeed marka gabadhan Whitney qisad ku socdo waxaa la dhashay only hal wiil oo liidaado asagan magaciisa Michael ayaa la dhashay waxay hooyadeed uga tagi jirtay gabar ay cousins yihiin oo magaceeda la dhihi jiray Didi Warwick sawirkeeda u jeedin ayay Whitney hooyadeed uga tagi jirtay inta ay maqan tahay fankiyada waxaas ay raadinayso si ay ilmaheeda ugu sii keer garayso naagtan marka magaceeda la yiraahdo Didi ilmaha Whitney gabadha qisadina ku socotay iyo walaalkeed way dili jirtay way caayi jirtay way aflagaadeyn jirtay especially Whitney way caayi jirtay erayo xunxun bay ku dhihi jirtay si kalsoonida nafsadeeda gabadha yari ay u disho waxaa kaloo sheegtay fanaanada afkeeda ay ka qaratay in taariikhdu markay ahayd 1985 loo geystay xoog yani de anshax xumo loo geystay ay saraali ka yihiin fahmi kartaan gabadha yar markay 19 jir ahayd ayaa waxay heshay fursadii ugu fiicneyd oo fanaan walba ay tahay dreamkeeda baa waxay heshay nin director la yiraahdo oo macruuf inkastoo hadda qisadan magaciisu aysan ku jirin laakiin kamid ahaa dadka ugu macruufsan wadankaasi Mareykanka oo erayada qora oo wax la xameeya la xamiiste iyo abwaanba isku baa marka Whitney ka helay codkeeda iyo sida ay wax u qaadayso because hooyadeedna waxay siin jirtay training fara badan xataa Whitney waxaa la geyn jiray hooyadeed geyn jirtay kaniisada si ay uga heesto si codkeedu u noqdo cod ma aragtay already qof tababaran si u noqoto marka hooyadeed fursadii ayada weyday waxay gelisay gabadheeda iyo juhdi inay caawiso ninkaasi markuu gabadhan gacanta ku qabsaday asaa erayada u qoray asaa laxanka u saaray waxayna albumkeedii ugu horeeyay uu u sameeyay caalamka ayay qabsatay heer waxaa la gaaray first albumkeedii ay gadato shirkada la yiraahdo Billboard okay shirkada Billboard qof walba oo creator ama heesa sameeyo ama film sameeyo ama video sameeyo shirkadaasi hadii ay ku qaadato koobkii faqriga waa tuurtay maada bay ka dhigan tahay ereygaas koobkii faqrigan tuurnay maalinka ugu horeysay maqlay gabaran ka maqlay ahayd 2011 waxay tiri albani aadana Allahu akbar one thing markuu ilaahay wax ku siiyo aad looma hayd mahmahdii walaqsanahay waxay tiri ayaa aniga hebel online dheera ma aniga anigu koobkii faqriga waa tuuray ilaahay muxuu kasay ereygaas maalinkay tiri bilooyin kadib in ay nolosheedii ups and down ay noqoto because dad ka liita
oo ka awood liito oo ka jeeb liito bay ku diganaysa markay saas lahayd faqrigii ay tuurtay ee sheegaysay ilaa yoomna hada 2023 way ku jirtaa marka ereyada qaar marka adigu waxaad saxalayday inkastoo la dhaho daragiska dhicis iyo alla gacabsi isku meel ma galan laakiin eeday saas tahay marka qaar ereyada afka ka soo baxay waxa dhici karta inuu gaf noqdo ama saba ay samadu furan tahay noloshaaduna isku bedeli karto noloshaaduna ay baaba ku noqon karto marka weliga iska ilaali in aad samaysid ma aragtay takabur don't please wallahi baa iga daacad so gabadhani marka ereygaasaan kusoo xasuusay because qofkii ugu horeeyay ka maqlay ahayd picture-kii qofku soo isku walaaqay maalinku ereygaas lahaaba iyo sas iigu hor muuqdo mugti marka gabadhan marka haddii iyo tan koobkii faqriga waa tuurtay Billboard ayaa gabadhii yareed marka heesaheedii oo dhan la wareegtay oo waxay la saxeexdeen contract second album ayuu isla ninkii abwaanka ahaa gabadhan fan ahaan u qaatay ee asaga mas'uuliyadeeda qaatay second albumkii uu u sameeyay asagana wuu hirgelay company-ga Billboard marka contractska lala galayo ala album way halkii album waxay ku leeyahay next album contract nala gal ina anaga noo soo saaraysid ayaga marka billions of dollars bay ka sameeyaan gabadhani second albumkeedii markay soo saartay ayaa shirkadda Billboard waxay la saxeexdeen heshiis contract saddexaad si ay albumka saddexaad ay soo saari doonto ee isla shirkadu ay u qaadato waxayna siiyeen $100 milyan oo doolarka Mareykanka okay caanima hadhiin jaab hadhiin magac hadhiin bay gabadhii hal mar saas u dhex muquuranaysa dabaalanaysa saas u sabaynaysa company-gana waa company aad u hirgalay gabadhan yar dhowr iyo 20 jir ayaa waxay ku naqatay caanimaysan diyaar u ahayn maalaysan diyaar u ahayn weligeed aragaysan maqal xataa in aragtay iska dhaafe okay waxyaabo badan baa marka waxay ka naqdeen mamnuuc okay because of caanimadeeda qofna lama saaxiibi karin qofna easy kuma shukaansan karin qofna easy noloshiisa ama nolosheeda kuma aysan soo gelin karin one of the credit-ka ay leedahay caanimadu bay kamid tahay okay credits-ka ay caanimadu leedahay caanimadu waxyaabo badan oo positive ay leedahay oo aad u tiro badan laakiin waxay leedahay negative yacni waa mindi laba afla waay mistake yar oo basiid ah baa dhici kara inuu sumcadaada dhan tirtiro nolosha inta ka dhiman oo noqotay tii sameynaysa because waad aragtiin as a community xataa waxyaabaha gabdhaha caanka lagu sameeyo ama ay sameeyaan qaladaadka ka dhaco magaca lagu shaambadaynayo ya tantii ma aho sas camal waay markaad caan aad tahay qofna si easy kuma trust gareyn kartid qofna si easy kuma shukaansan kartid halka gabadhu marka aysan caanka ahayn ee ninka rabta shukaansanayso ninka rabta raacayso ninka rabto aysan isdhehayna ma cod lagaa qabtaa ama aysan isdhehayna ma qoraal lagaa qabtaa ama aysan isdhehayna ma muuqaal lagaa qabtaa laakiin gabadhu markay caanka tahay waxaasoo dhan aad ilaalinaysaa qofkaad koolka kula hadlaysa hadalkaaga waa xadadan yahay because inta lagu duubaa lagu keenaa okay sida hadda social media la isku keeno baa berigaasna la isku keeni jiray jaraa'idada iyo TV-yada la isku keeni jiray soo in dadka caanka la fadeexay waa wax soo jireen ahay weeyaan marka one of the credit-ka uu leeyahay caanimadu waxay tahay in ma aragtay aadan noqon karin sida aad adiga rabtid ma noqon kartid you can't ma awoodid waa ku qasban tahay sankuna waa ku dureeyahay inaad iska fargaraysid okay I think inay fahanteen oo hadalka ku dheeraanin ayada saas ay tahay maalinta ka dambaysa gabadhaani marka way sii caanbaxaysay marka waxaa jiro fanaaniinta badankoogu in ay qaataan maandooriyayaasha masebo balwad inay leeyihiin okay
fanaan sidiisaba fanaaniin balwad lahayn waa yaryihiin ama soomaali ha noqdaan ama ajaanib ha noqdaan doesn't matter fanaaniin balwad lahayn waa buuxan laakiin fanaaniin balwad lehna waa buux laakiin marka labada la isbarbar dhigo xataa soomaali haddii laga hadlo kuwa balwada leh baa badan that's the reality okay gabadhan marka bilowgii ma aysan lahayn balwad laakiin maalin maalmaha kamid ah walaalkeedii ka weynaa Michael oo jeclayd oo ay u arki jirtay inuu role model u yahay oo xataa hooyadeed mararka qaar markay warka ka diido walaalkeed loo wici jiray suu u dejiyo ula hadlo warkiisa ay u maqasho baa waxay ugu timiday gurigooda asaga oo baasha sanka ka qaadanaya dabcan way bariday uu ka diiday bilowgii laakiin markii dambe way ku qancisay in ay ayadana la isticmaasho nacasta balwad xataa levelay kala leedahay qaar waxaa jira khamro waxaanan ahayn qaar waxaa jira xashiishada qaad qaar waxaa jiro ilaahay idinma tuso okay gabadhan markay bilaabaday nacastii waxay bilaabaday marka inay ay dhankaas ay u badato miisaankeedu dhankaas u bato because qofka mar hadduu balwadu bartane miisaankiisu saan ma naqan karo because qofkani waqtiguu seexan lahaa uu reesta qaadan lahaa waxbuu daldalayaa xilliguu shaqayn lahaana wuu jiifaa lugtuu taagaya so okay waa dareemi kartiin 1992 ayaa waxay jeshay filinkii ugu horeeyay ee nolosheeda ay jesho oo magaciisa la yiraahdo Bodyguard filinkaas wuxuu sameeyay daawashada oo yani dhaqaale ahaan daawashada because berigoor inta cinema la tagaa lacag la bixin jiro la daawasay YouTube yaada ma jirin wuxuu soo geliyay filinkaasi 400 oo milyan dollar oo cash ah baa filinkaasi lagu daawaday waana de zamankaas ba ka hadlanaa 1992 filmaana ka dambeeyay waa jiraan oo numbers sameeyay ayagana laakiin filinkaas wuxuu ahaa filmaantii ugu horeeyay filinkii ugu horeeyay ee numberkaas soo taabta laakiin filmaan ka dambeeyay waa jiraan oo dhaafay xataa laakiin markaas 400 oo milyan image garay filinkaasi waxaa ku xigay albumkeedii ama si heesteeda ugu caansan ilaa iyo xad heesta ugu caansan ee la yiraahdo I will always love you ay samaysay ay soo deysay 1992 waxay isbarteen nin magaciisa la yiraahdo fanaan asagana laakiin fanaaniinta yaryar kamid aha oo magaciisa la yiraahdo Bobby Brown markay isbarteen kadib 1992 isbarteen 1993 way iskursadeen waxayna u dhashay Bobby Brown gabadheeda kaliya because fanaanadan hal gabar kaliya ayaa dhashay ninkan gadaashiisa wax may dhalin hal shaas gabar baa ugu dambeysay ilmo gabadhaas waxaa la yiraahdaa magaceeda Christina sawirkeedu waa ujeedeen ninkeedu marka asagana wuxuu qaadan jiray balaayadan baqtiga iyo qashinka labadoodu markay soo wada shaqeeyaan ay soo laabtaan guriga baa waxay isbari jireen midka ka balwad badan midka ma aragtay ka talantisan sida baasha loo qaato loo isticmaalo maalinba wax cusub maalinba balaayo iyo qashin